السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن أو ونكسن داود يال هل كان ودولي ميديا كسو دوادا صاحب يال مو قال كنا مانتا Gobolka Bakool waa gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolada hadda loo yaqaano maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. magaalada madaxda gobolka waa degmada Xudur waxay qiyaastii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay u jirtaa 130 kiiloomitir. sidaas ay tahay waa gobol Ilaahay ku manaystay khayraad kala duwan waxaana ugu waaweyn oo ay caan ku tahay gobolka dhaqashada xoolaha nool sida geel, ari iyo lo'da. sidoo kale waxay caan ku yihiin dadka ku nool gobolka Bakool dhanka beeraha iyo barashada culuumta diinta Islaamka. ma jirto gobolkan tirkoob rasmi ah oo laga haayo dadka ku nool balse qiyaasta ayaa ah milyan ilaa milyan iyo 400 qof. baaxadda dhuleed ee gobolka Bakool ku fadhiyo waa 30,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. degmooyinka gobolka Bakool waa 5 degmo waxayna kala yihiin degmada Xudur, degmada Waajid, degmada Rabdhuure, degmada Tiyeglow iyo Ceelbarde. gobolka wuxuu xuduud la leeyahay dhanka waqooyi galbeed ee Soomaaliya gobolada kale ah Bay, Gado iyo Hiiraan. sidoo kale gobolka Bakool wuxuu ka mid yahay gobolada xuduudka la leh dawladda Itoobiya. sidoo kale wuxuu xuduud dhow la leeyahay dawlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ama dhulka Soomaaliyeed Itoobiya haysato. ugu dambeyntii waxyaabaha ugu caansan ee laga xusi karo gobolka Bakool ee uu qaniga ku yahay waxaa ka mid ah soo saaridda xabagta, fooxa iyo macaadin aad u fara badan oo ilaa hadda aan laga faa'iideysanin. sida guud ahaan gobolka Jubbada Sare ayaa la isku dhihi jiray gobolada hadda kala ah Bay, Bakool, Gado. amaan Allah.